diidnay ciidamaha habeysano eegano diyaaraho markii hoosha loo diro ku hagaajiyanahay ozel harakat harmacas ciidamaha habeysano eegano diyaaraho markii hoosha loo diro ku hagaajiyanahay ozel harakat harmacas taliya ku-xigeenka ciidamada booliiska Soomaaliya sareeyo guuto Cismaan Maxamed Cabdullaahi Kaniif oo maanta soo gaaray magaalada Dhuusamareeb ayaa galinkii dambe ee maanta waxa uu kormeer ugu tagay ciidamada booliiska gaarka ah ee Haramcas kuwaas oo ka howlgala magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug waxa uu ku amaanay howlaha ay ka wadeen bilihii la soo dhaafay deegaanada Galmudug gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb waxa uu sheegay hawshaasi in ay tahay mid qaranka ay u qabteen isla markaana abaalmarin ay ku mudan yihiin iyaga iyo saraakiishuba waxa uu guddoonsiiyay salaan uu kaga siday taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliyeed waxa uu sheegay in taliyuhu dhawaan uu soo gaari doono deegaanadan si uu ugu kurgalo xaaladda ciidamadan ay ku sugan yihiin iyo howlaha ay ka hayaan deegaanadan dowlad goboleedka Galmudug aad baan kugu faraxsanahay shaqadiina runtii waxa soo hoyseen guulo sharaf leh oo ciidanka booliiska iyo Soomaalida dhan ku faanto ba soo hoyseen waana la inka maleynayay si sharaf leh waa u soo shaqeyseen waan kaga mahad celinayna waxaan ku salaamay salaan kaga wada taliyihii booliiska oo hadda u sheegay inaan soo aadahay yiri ugu salaan asaguna waa imaan doona markii hadii Ilaahay idmo marka anigu waxaan kugu imid meeshan shaqadan haysan inaan la xoojino iyo booliiska oo dhan maaragtay shaqada uu ka hayo Galmudug inaan maaragtay aan dardar gelinay kugu nimid adunkuna hadda waxa tihiin lafdhabarkii ciidanka booliiska baa tihiin shaqooyinkii aad dalalka intiisa kale ka soo qabateen iyo midda ka soo qabateen halkaanba waxa ku helaysaan insha Allah mudnaan baa ku helaysaan sharaf baan u soo haysaan ciidanka booliiska waana kaga mahad celinahay adinka iyo taliyaashiinaba shaqo fiican baad qabateen oo aan ku faani karno runtii ciidamadan Haramcas oo ka howlgala magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxa ay door muuqda ka qaateen howlaha ka soconaya deegaanada Galmudug gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb ee dhismaha Galmudug iyadoona shirkii dib u heshiisiinta ee bilo ka hor lagu soo gabagabeeyay magaalada Dhuusamareeb sugidda amnigiisa si wacan uga qayb qaateen haddana ay u diyaarsan yihiin howlaha ka dhiman dhismaha Galmudug inay ka sii qayb qaataan Maxamed Cabdi Maxamed warbaahinta qaranka Dhuusamareeb الله كهشانه وهذه اللسان على كهشانه أودينا يدرك نجوغا أودينا يدرك نجوغا نندوف له كانك وهذا نندوف له كانك ورويك غاته ادعي عذبينا ورويك غاته ادعي عذبينا الله كهشانه وهذه اللسان الله كهشانه أضودي منا يدرك نجوغا أضودي منا يدرك نجوغا ودوما نندوف له كانت معاذ ودوما نندوف له كانت